Assalaamu calaykum. Dyspepsia waa calaamado dhowr ah oo isku tegay, lehna dhibaatooyin caafimaad oo badan. Af Soomaali ahaan waxaan u naqaanaa gaas. Calaamadahan ayaa lagu arkaa qaybta sare ee begga goortii aad wax cuntid ama aad wax cabtid, sida baaritaannada iyo warbixinada caafimaadku sheegaan. Lama dhihi karo waa xanuun ama jiro, laakiin waa calaamado dhowr ah oo isku tegay, qofkana ku keena saamayn daran ilaa uu noqdo qof aan dareemayn wax raaxo ah iyo nafisba. Muuqaalkeenna maanta ayaan si qoto dheer ugu lafaguri doonaa waxa sababa calaamadahan, sida loo daaweeyo, iyo sida aad uga hortagi kartid, welibana anoo sii raacin doona waxa la gudboon Soomaalideenna si dhibaatadaani nooga yaraato ugu yaraan. Ka hor muuqaalka, haddii ay tahay markii kuugu horreysay channelka aadna danaynayso warbixinada caynkani oo kale ah, fadlan like dheh, subscribe na saar channelka, gambaleelkana furo si aad ula socoto muuqaalada aan soo gelinno ee waxtarka leh. Aan bilaabo fiidiyowga. Calaamadahan Soomaalideennu u bixisay gaas waa jiro guud taasoo caalamka laga wada garanayo, mana lahan waddan ama goob u gooniya oo lagu yaqaano. Gaasku qiyaas ahaan 30% dadyowga caalamka waa mid saamayn weyn u geysta, kuna haya fara ba'an oo u baahan in wax laga qabto, wacyi fiican oo ku filanna bulshada laga siiyo. Waxaa jira calaamado uu si guud u leeyahay gaasku, waxaana ka mid ah dibirada, raaxo darrida qofka, dheregta joogtada ah, iyo hawo dareemid. Sida guud, xaaladahan ayaa la dareemaa ka gadaal marka aad wax cunto ama aad wax cabto. Sidoo kale, haddii aad leedahay xaaladahan caafimaad ee ah laabjeexa ama qaadashada daawooyinka kiciya, ayaad isku arki kartaa calaamadahan isku tegay. Qofka markii uu leeyahay gaaska waa in lagu arkaa xanuun dhanka dheefshiidka ah, dhereg saa'id ah markuu wax cuno, horay ka dhergid, laabjeex, labolabo ama liidaanyo, iyo dibiro. Bukaanka ayaa isku arki kara kuwaan haddii xitaa uusan cunin cunno xaddi badan oo sabab u noqota inuu dhergo. Sababaha calaamadahani isku tegay waa tiro badan yihiin. Aniga ahaanse waxaan kuugu soo koobayaa 2 qaybood: qayb la xiriirta deegaanka iyo noloshaada waxyaabaha ku xeeran, iyo qayb kale oo ay keenaan cudurro kala duwan. Qaybta la xiriirta waxyaabaha nolosheenna ayaa ah 4 nuuc oo kala ah balwadda, sida sigaar cabidda ama in agtaada lagu dhuuqo, cuntooyinka qaar, cayilka, iyo walwalka. Qaybta cudurrada keena calaamadahani kala duwan ayaa ah laabjeexa, gaas calooleedka, kansarka caloosha ama kansarada kale, daawooyinka sida xanuun baabi'iyaasha, caabuqa ku dhaca ganaca, dhagaxaanta xamiitida, cudurrada beerka, caabuqyada caloosha, eernada qaar, infekshanka qaar sida H. pyloriga, iyo cudurrada ku dhaca mindhicirada. Inta badan Soomaalida
waxaa dhibtani u keena waqtiyada cunnada oo xun iskuna toosnayn, iyo ku seexashada habeenkii cuntada oo qayb weyn ka qaadata qofka inay ku soo degdegaan xanuunnadani. baaritaan ahaan, gaaska waxaa lagu ogaan karaa calaamadaha uu qofka sheeganayo. sidoo kale dhakhtarku waxa uu ku hubsan karaa baaritaanno shaybaar kuwaas oo xaqiijinaya in sababtu ay ka timid nafsad ahaan qofka ama inay u keeneen cudurrada aan kor ku soo xusay ee sababa calaamadahani isku tegay. daaweynta xanuunkan leh calaamadaha si kala duwan ee gaaska loo yaqaan ayaa waxa ay ku xidhan tahay waxa sababta u ahaa imaanshihiisa, sida wax ka beddelidda nolosha iyo daawooyinka gaaska, ama cudurka markaasi sababta u ahaa in uu yimaado. inaad wax ka beddesho noloshaada waxaad samayn kartaa ka dheeraanshaha waxyaabaha sajalka ah sida cabitaannada, ku dadaalidda biyo cabista, ka fogaanshaha basbaaska, toonta, basasha, kafayiinka, cabitaannada aashatada leh, cunnada shiilan. sidoo kale ku dadaalidda tartiib wax u cunidda, hurdada 3 saac ka hor inaad wax cuntid, inaad barkin ku seexatid, iyo inaad ka dheeraato sigaar cabidda iyo meelaha lagu cabo. haddii aadan iskala tacaalin xanuunkan, waxaad dhaxli doontaa 3 waxyaabood midkood: hunguriga oo ku adkaada, caloosha oo ku xidhanta, iyo dahaarka bogga oo caabuq kaaga dhaco, afka qalaadna loo yaqaan peritonitis. ugu dambayn, ku dadaal daryeelka caafimaadkaaga iyo kan qoyskaagaba, qaadana talooyinka habboon ee aan kuu soo gudbiyey. haddii aad isku aragtay ama aad ku aragtay qof qaba guriga. muuqaalkeenna maanta intaasi ayuu ku egyahay daawade. haddii aad ka heshay muuqaalka, fadlan like saar, hana iloobin inaad subscribe saarto channelka, gambaleelkana aad furato, commentiskana iigu reeb haddii aad rabtid muuqaaladani oo kale. fiidiyowga inoo xiga insha allah.